السلام عليكم أصحابي كسو دوادا مقالكينا يوتيوب مقالكان ayaa noqonaya qaybtii afraad ee muqaalada ay naxariistu ku dheehan tahay haddaba aan u gudagalno muqaalkina maanta gabadhan xijaabka qabta ayaa markii laba dhaaftay micnaha kubadda ayaa gabadhii saddexaad isku dhacoodii xijaabku ka turkay balse gabdhihii ka soo horjeeday ayaa isku hareeriyay gabadhan si ay u xirato xijaabkeeda hooyadan dubka ayaa aragtay in dhalaankeedii uu ku dhacay biyaha iyadoona si dhakhso leh ugu soo oroday xaggiisa si ay u badbaadiso dhalaankeeda wayna ku guuleysatay ciyaaryahanka kooxda Bayer Leverkusen ee Jeremy Frimpong ayaa ku dhuftay cunugan kubadda si kama balse Jeremy ayaa u dhaqaaqay dhanka cunuga isagoona dhunkaday siyana funaanadiisii ninkan wuxuu siiyay biyo qabow darawalkan kaas oo gaarigu uga xumaaday wadada dhexdeeda halka darawalkii uu aad ula ashqaraaray caawimaada ninkan xidiga heerka caalami ee kooxda Liverpool ee Thiago Alcantara ayaa gabadhan yar hawiyay funaanad si aysan u dareemin qabowga daran bal eeg iyagana falcelintooda waaw aabahan ayaa daqiiqadii ugu dambeeyay ee noloshiisa la kulmay gabadhiisa oo aroos ah gabadha ayaa laba wado furneed inay xafladda arooskeeda ku baashaasho ama inay la jaasto aabaheed iyadoona qaadatay go'aankii ugu fiicnaa daqiiqadan ayaa noqotay markii ugu dambeysay ay wada kulmaan gabadhan iyo aabaheed wiilkan kadib dhimashada hooyadiis ayna soo wajahday xaaladan fiicneen ayaa hal mar ardaydii isku klaaska ahaayeen sameeyeen ficil aad u qurux badan ciyaarta kubadda kolayga loona yaqaano NBA-ga waa mid ka mid ah ciyaaraha ugu caansan daafaha adduunka haddaba labadan ciyaartooy ee lagu kala magacaabo Luka iyo Trey bal eeg falcelintooda ee ku aadan goolka gabar ayaa ka luntay koofiyadeedii bal eeg qaabka cajiibka leh ay dib ugu heshay gabadhan yar markii aragtay walaalaheed ka waaweyn oo ka imaaday iskuulka ay dhankooda u carartay Soomaalidu waxay ku maamahdaa caliyo walaal aanu ka macaan waaw cunugtan yari waxay la kulantay deeradan balse waxaan ognahay in deeradu ay bini'aadanka u soo dhawaan balse gabadhan yari si degan ay ula ciyaaraysaa iyagoona u moodidba inuu isfahan dhex maray cajiibiga dheh dadka guriga iska leh waa dad aad u qalbi wanaagsan iyagoona caabitaan iyo cuntooyin fudud u sireebay dadka adeegyada geeya kuwaas oo markay shaqadooda dhameystaan kala sii baxa meesha loo dhigay bal arag cuntooyinka fudud iyo caabitaanka halkan yaala saaxiibada mar kale ay kulmeen sanada kadib iyagoona la ashqaraaray inay dib u kulmeen bal eeg farxadda iyo badboodka ka muuqda ninkan hooyo la'aanta ah ayaa markuu ogaaday inuu ku baasay wareysigii shaqada ayuu dabaaldegaya farxad sameeyay taasoo waqtigaas ahayd mid duubaysa kaamirada CCTV-ga ee goobta waaw farxad ayuu bala duuli gaaray gabadhan oo wadada iska maraysa ayaa waxaa qashqashaaday laba nin kuwaasoo ka soo horbaxay balse rag fundiyaala oo meesha fidhiyay ayaa goobta ka soo kacay iyagoona ka celiyay gabadhii ragnimada lagu sheegayo waa taas dabcan gaarigan xawaaraha ku soconayay ayay hooyadan uga baqday dhalaankeeda inay gaaraan biyaha iyadoona isku duubtay balse ninkan wuxuu ahaa darawal heer caalami goobtu waa dalka Vietnam ninkan cabsan ayaa wadada tareenka ku dhacay balse mid ka mid ah shaqaalaha wadada tareenka ayaa hal mar ka soo jeeday ninkii goobta iyadoona tareenku wax yar u jirsaday inuu maro balse ninkan ayuu Ilaahay ku cayntay ninkan dhalinyaradahi ayaa la kulmay sarkaalkii badbaadiyay noloshiisa markii uu yaraa aan isla daawano muuqaalkan Our primary goal. How you doing, sir? Good. With me? No, I don't, sir. 1997. Oh my God, are you serious? People out of a swimming pool. Save his life. Wow. That's awesome, man. Because of you, I'm still here. Because of you. gabadhan yari isku dayo badan oo ay sameysay ay u suurtageli weeday balse ugu dambeyntii way la heshay ninkan ayaa u soo goday wiilkan curyaanka ahi gaari curyaan cusub bal eeg shucuurtiisa iyo farxadda ka muuqata
gabadhan yari islaantan ayaa ka codsatay inay u godo sandwich. I love you too. Thank you. You like this? dabcan qalbi wanaagga iyo naxariista wax la isdheer yahay sida gabadhan oo kale. This is yours. Are you excited to eat it? Eegan yari eeg islaantan ayuu u durjinayaa kursigan ay ku firisan lahayd. Cajiib iga dheh dabcan cunugan waa dhalashadiisa bal eeg askarigan wuxuu sameeyay. mararka qaar ma adka in qofka laga farxiyo. sarkaalkan booliiskaahi ayaa ka fariistay shaqada booliiska balse maalinta xafladda dhalashadiisa ayaa waxaa soo camiray saaxiibadiisii xilliga shaqada. gabadhan iyo hooyadeed iyagoo wadada maraya ayaa gaarigan soo hor istaagay balse ninka gaariga ayaa siiyay gabadhan yari boombale balse dan ayuu ka lahaa oo wuxuu rabay inuu afduubto waxaana ka soo gaaray haweeney kale. wiilkan yari wuxuu neeshan u tilmaamayaa meesha hooyadeed ay joogto isagoona farta ugu fiiqaya. ugu dambeyntiina neesh yareed waxay heshay hooyadeed. ardayda fasalkan ku jirta ayaa kala cararay kadib dhulgariir bilaamaday balse wiilkan ayaa saaxiibkiis oo lugta ka jabnaa ku xambaaray dhabarkiisa ilaa uu ka saaray dhismaha iskuulka. gaarigan soo taraaraxay ayaa laba dhalinyaro ah ku soo ordeen. mid ka mid ah dhalinyaradii ayaa gaariga daaqadda ka galay isagoona u suurto gashay inuu bareega u qabto wuuna ku guulaystay. wiilkan ayaa baaskiilkiisa u dhigay bisadan si ay ugu soo degto derbiga. shaqo wacan ayuu sameeyey wiilkan. halkaasii muuqaalkeena ku jooga asxaabay ha ilaawin inaad leegarayso nagu soo biir haddii aad nagu cusub tahay. wabilaahi tawfiiq.